oo waxa marka aynu soo tilmaamnay uu yahay soo qeexitaanada kala duwan aynu soo baranay. Transport waxa la yiraahdo, communication waxa la yiraahdo, iyo Allahu musta'an waxa la yiraahdo trade. Transport iyo communication and trade baan saddexdaa ayaynu ku soo sameynay, mid walba dee qeexitaankiisa iyo definitionkiisa aynu soo qaadanay. Cashirkeenan labaad ama waxay noogu xigaynu eegi doonaa haddaba transport iyo communication difference-ga u dhexeeya muxuu yahay. Contrast transport and communication. Transport iyo communication farqa u dhexeeya ayaynu markaas barbardhig ku sameynaa. Contrast means difference. Difference-ga labadan u dhexeeya way transport haynu eegno. Transport-ku deals with the movement of physical items and people. Marka lagu leeyahay gaadiidku waa maxay? Gaadiidku waxa uu ka hadlaa ama uu khuseeyaa waa movement of physical items and people. Waa alaab meel laga qaaday oo meel kale la geeyay, iyo dad meel laga qaado meel kale la geeyay. Ujeedada loo geynayay ujeedada khaas ah marka laga ilaha noqotay waxa dhacay marka waxa la oranayaa transport baa la oranayaa. Marka transport-ku isagu waxa weeyaan waa movement of physical items and people. Haddaan si kale u dhigno waa movement of people and items or goods from one place to another. Way communication-ku waa maxay? Communication-ku waa deals with movement information. Waxa la isdhaafsanaya waa information. Waxa meel ka tagaya meel kale tagayay waa information. Marka ha fududeeyo marka waxa la yiraahdo communication channels-ka inoo fududeeyaan halka dambe inooga muuqatay ama communication media, laakiin waxa la isdhaafsanayaa one point ka dhaqaaqaya another point kale tagay ama from one person ka tagay to another person kale tagay waa information. Halkan kale uu yahay items and people. Way another point kale ay ku kala duwan yihiin. Ka waxa la isticmaalayaa involves only physical carriage of goods using unit of carriage as vehicles, airplanes and shipping vessels. Kan waxa markaa inoo fududeynaya inay dadkii meel ay ka tagaan oo meel kale ay tagaan ama materialki ama itemski inta meel laga qaado oo meel kale la geeyo daashadana bay inoo fududeynaya carriage-kaas uu dhaco. Waxay inoo fududeynaya in la helo vehicles. Cars means vehicles, cars in la helo airplanes, in la helo shipping vessels. Marka hadda in maraakiib ay jirto, in diyaarad ay jiraan, inay gawaari ay jiraan ba waxay fududeynayaan in uu dhaco movement of items and people from one place to another place. Way marka waxa fududeynayay waxa weeyaan waa in la helo kuwa in la helo. Way information-kii maxaa fududeynaya? Physical carriage of information can also be sent to computers, telephones, satellites and another media. Kana information-kii la kala qaato, information-kii from one person ku yimaado to another person uu tago, ama from one place uu ka tago to another place uu tago, ama from one group ka tago to another group tago. Waxa la isticmaalayaa waxa weeyaan computers, telephones, satellites and another media. iyo dee maxaan ku radaa wasaa'il iclaam kale oo iyaguna fara badan oo jira. Marka kuwan baa fududeynaya computers in la helo, telephones in la helo, satellites in la helo, iyo dee another media kale fara badan oo iyaguna jira. Waxa weeyaan kuwan marka dee laga yimaado haweeneyga arkaya imika waxyaalaha ugu badan ee information lagu kala qaatay waxa weeyaan email-yada iyo marka imika laga yimaado anaga WhatsApp iyo waxa weeyaan Messenger iyo waxyaalaha dhan la isticmaalana oo dee waxa weeyaan message iyo waxyaalo badan xogo badan isku dhaafsanay. Way xagga time-ka marka laga hadlayo transportation-ka, time-ku to be covered may be long. dee waqtiga waxa laga yaabaa inuu halkan dheeraado. Waxa weeyaan marka alaab meel laga qaadayo meel laga qaadayo meel kale la geynayo waxa laga yaabaa it may take a long time. Waxa laga yaabaa in waqti dheer ay qaadato. Laakiin information in la isdhaafsaday transmission information is immediate. waa wax maxaan ku dhahdaa seconds iyo maxaan ku dhahdaa ilbiriqsiyo gudaheed ku dhacay weyn.
ama dadayna message markaad imika qof u dirayso dee waxa weeyaan wuxuu ku helayaa within seconds buu ku helaya sooma marka xaggii timekana markaad ka eegto waxaa laga yaabaa timeku inuu dheeraado kana timeku inuu fududaado oo timeku markaa dhaqso noqdo marka contrast marka lagu sameynayo transport iyo communication sidaaba marka la isku barbar dhigaa kan markuu say kan waasan kan markuu say kan waasan kan markuu say kan waasan marka transport iyo communication marka isku barbar dhigo hadii yimaado difference-kooda hadii yimaado saddexda shay baa marka laga tilmaamay inta badan oo common waaye halkaas sii socono waxaynu haddaba eegaynaa transportationku iyo communicationku roolka uu leeyahay ama kaalinta leeg ee bulshada uu leeyahay ama dhaqaalaha uu leeyahay the role of transport and communication in society waa inta economy labada odhan karta kaalinta isgaadhsiintu iyo gaadiidku ay ku leeyihiin ama ay ka ciyaaraan dhaqaalaha ama bulsho meel degan faa'iido ay u leeyihiin transport la helo in communication la helay talow wax faa'iido ku jirtay miyay jirtaa marka bal kaalinta iyo doorka ay maxaan ku dhahdaa labadan ay dhaqaalaha waddan ay ka qaataan aynu eegna ama dee bulsho society meel degan way mid walba bal waxaynu ka tilmaami doonaa laba qodob baynu ka tilmaami doonaa waayo transportation baynu ka horeyno transport facilitates trade by carrying goods from one areas of production to consumption transportationku waa kay inoo facilitate garaynaya ama inoo fudaydinaya ganacsi inuu dhaco transportationka laga maarmaanka in la helo oo markasta oo la helo good transportation system sida xagga hore aynu kusoo tilmaanay dee trade-kii u fiicnaanaya ama ganacsiga meeshaa ka jiray kor buu qaadmaya ama aad iyo aad buu wanaagsananaya oo trade transportation waa ka fududaanaya inta alaab meel laga soo qaado meeshii laga soo saaray laga soo qaado alaabtii dabadeedna loo geeyo consumption dee meeshii looga baahnay la isticmaalay marka haddii transportation una jirin if there is no transport system dee waxa weeyaan trade-kii kolley weakness weyn baa ku imanaya ma waxa weeyaan gaabis weyn baa ku imanaya waxaa laga yaaba trade-kaas inuu maxaan ku dhahdaa xumaado waaye markaa transportationkii markaa doorkii intaa lagu qaadanaya waa kaaba markaa fudaydinaya alaabtii fudaydinaya waaye laba daynu si degdega iyo taataabno transport facilitates movement of people from one place to another place in search of job application transportation waa ka fudaydinaya bini'aadamka inay meel kale ka tagaan meel kale tagaan iyaga ujeedin kala duwan u tagay waxa weeyaan ama shaqo u tagay ama waxbarasho u tagay iyada ujeedooyin kale oo fara badan oo qofku meel uga tegi karo meel kale u tegi karaa jirta marka transport baa inoo fudaydinaya markaa inuu waxaan ku dhahdaayay actionkaas uu dhaco in la helo the cars in la helo ships in la helo airplanes waxyaalaha in la helo ayaa markaa fudaydinaya marka the more mar kasta oo transportationka uu fiicnaado ganacsiga waddanku uu wanaagsanaanaya oo markaa waxa markaa fududaanaysaa waxa weeyaan isku socodkii dadkii alaabihii markaa inay si fudud u kala gooshaan oo iminka waxa de example fiican bay noo aba iminka magaaladeena Boorame iyo gobolada kale ee waddanku intaa iminka la sameeyey laamiyeer oo waxa weeyaan iska fiican la sameeyey ay soo baxeen dee waxa weeyaan kambaniyo inta transportation kan dee ka shaqeeyo kuwa basaska u badan waxaan moodaa isku socodkii alaabaha iyo dadku inuu kordhay sidaa daraadeed waxaan moodaa in ganacsigii magaalooyinka u dhexeeyay uu aad u kordhaan moodaa oo dareemasa waayo talabaad communicationku isna keeps us informed about the world's events isgaarsiintu iyadna waa tay noo fududaynaysaa inaynu eventska iyo waxa adduunyada ka dhacaya dhacdooyinka adduunyada ka dhacaya inaynu ogaano aware u ahaano communication bay noo fududaynaya dee marka if you are access to use internet or other social media haddaad awood u leedahay inaad isticmaashada internet iyo social media kale jira waxaad heli kartaa oo maxaan ku dhahdaa dee aad ogaan kartaa waxa adduunyada ka socda maalin walba dee adiga la soconaya marka aad ogaanaysid marka communicationkiina isna dee faa'iidada buu keenayaayo oo
kaalinta waxa weeyaan uu ka ciyaaraya waxa weeyaan in dee dadkii aware ay u ahaadaan ama ay ogaadaan wax kasta oo dee waxa weeyaan dee adduunyadii ka dhacay aad ogaato maanta dee adduunyada waxaa la idhahdaaba the global village ama waxaa la idhahdaaba village way kasii tegto waabada caalamkii wuxuu noqday maqsin ku dhaato lagu wada noolyahay marka waxaa markaa fudaydinaya waxa weeyaan communicationka waa fudaydinaya ugu horeeyo internetkaas waaye ta labaad communication brings a positive changes in the life of people and thereby enhancing their economic condition communicationku hadduu fiican yahay waxa uu keenayaa inuu saameyn togan oo fiican uu ku yeesho maxaan ku dhahdaa noloshii dadka society-galka degan inuu saameyn fiican oo togan uu ku yeesho oo dadkii wax walba ay awood u heli karaan markaa inay si fudud ay ku helaan haday noqoto xagga dhaqaalaha haday noqoto waxa weeyaan noloshoodii kale marka damoor markaa communication fiican uu jiro damoor waxa weeyaan dadkii ay si fiican u heli karaan dee wax badan oo maxaan ku dhahay noloshoodii ay quseeyo oo maxaan ku dhahay noloshoodii wanaajinayo isticmaalayaan marka transportationkuna kaalintaas buu leeyahay communicationkuna kaalintaas buu leeyahay marka dhaqaalaha wadan ama bulsho meel degan kaalinta intaa leeg bay ka ciyaari karaan in kale oo fara badanba waayahay waxaynu kusoo gabagabeyneynaa last lessonka insha allah aynu kusoo gabageynaa waxa weeyaan factors of influencing transport and communication waxyaalaha saameeya qodobada saameynta kule maxay yihiin isgaarsiinta hadday tahay iyo hadday tahayba gaadiidka marka lagu leeyahay shaygaasi shaygaa uu saameeya waxa weeyaan saameyntu laba mid bay noqon kartaa ama saameyn wanaagsan ama saameyn xun marka kuwan meesha aynu ku tilmaami doono meesha inoogu yaalay haddii ay fiican yihiinna macnaheedu waxa weeye inay wanaagsan yihiin saameyn togan oo wanaagsan ayay ku yeelanayaan communicationkii iyo tradekii haddii ay xun yihiinna saameyn taban oo negative ayay ku yeelanayaan communicationkii iyo trading marka shaygaas marka lagu shaygaa u saameeyaa saameynta markaa labadii dhinac way noqon kartaa mid wanaagsan way noqon kartaa mid xunna way noqon kartaa way markaa bal waxyaalaha saameeya transportation communication ama wanaajiya ama xumeeya waayo koowaad existence of sets of corresponding places of surplus, supply, and deficit demand for goods, service, and information. Waxa saameynaya waxa weeyaan waxaa jira horta waxa la yidhahdo supply and demand. Supply and demand. Labadan shay waa waxa la hada jeer waa labada shay ee ganacsigu ka duulay ganacsigu inuu yimaado ama ganacsi horta inuu dhaco baahi baa maxaan ku dhahdaa ay keen Soomaa baahi markay timaadana wixii baa la keenaa marka supply and demand labada shay waa labada shay ee go'aamiya in markaa activity ganacsi uu yimaado waayahay transportation inuu dhacana de labadan saameyn bay ku leeyihiin oo say saameyn ugu leeyihiin waxay saameyn ugu leeyihiin labadan waxay saameyn ugu leeyihiin in qofka traderka ganacsadaha ay de had iyo jeer waa qof had iyo jeer baahida marketka ka jirta oo la socda waxa weeyaan kolba markaa wixii dadku ay u baahan yihiin keena dadku waxay u baahan yihiin keena marka in alaabtii meel laga soo qaado oo meel kale la geeyo dee waxa keenaya inay baahi ganacsi ay jirto dee inay baahi ganacsi ay jirto marka transportationkii markaa haddii markaa labadani supply and demand dee labadan haddii ayna jirin dee waxaan transportation ma dhacayo oo waxa weeyaan saameyntiisi dee saameyn negative meesha imanaysa saameyn negative ayaa imanaysa marka waxaa la idhahdaa demand waxaa la idhahdaa waa dalab supplyna waa keenis marka labadaaba de waxa weeyaan ganacsiga labadaaba waxa labada arrimood wada ku shaqeeyaaba kolba wixii loo baahan yahay baahi markay timaado baahi dadkii markay kolba waxay u baahdaan ayaa loo supply gareeyaa loo keena marka halkaa markaa waxaa ka yimaada markaa transportation u dhacday wixii markaa dadka ay u baahnaayeen loo soo qaado oo markaa loo keeno marka labadan markaa haddii ayna jirin transportationkiiba ma jirayo
oo waxa weeyaan meeshii dee transportation marka ma dhacay. Markaa supply and demand waa laba shay oo saameyn ku leh transportation inuu dhaco, oo haddii labadan ay jiraanna transportationkii uu imanayo, haddii labadan ayna jirin transportationkii uuna imanin. Markaa supply and demand waa labada shay had iyo jeer lagaba duuliyo dee ganacsiga marka laga hadlayo, labada shay baa had iyo jeer laga dhaqaaqa. oo waxa weeyaan for example qof markuu traderka ganacsadihii inuu farso qof businessman ama ganacsadaa tahay, waxaad aragtay shay baad aragtay aada loogu baahan yahay, waxa weeyaan dhimaanka suuqu uu aada u sareeyo, dabadeedna waxoogaa yar baad ka keentay, supplyga aad keentay uu yaryahay. waa had iyo jeer meelaha had iyo jeer laga lacagaysto dadka maxaan ku dhahdaa businessmanka ay lacag ka helaan, waxa shay aada loogu baahan yahay suuqii baad ogaatay, dabeedna wax yaroo kooban baad keentay. markaa dee inaa intaa doontay lacag ayaad siin karta, sababtaa baahida meesha jirto, baahida aada u xoogan oo dadka aada bay ugu baahan yihiin. had iyo jeer sidoo kale outsidkayga wuxuu khasaaro ka dhacaa wixii iyadoo loo baahnayno marketkii baahi badanna ka jirin, haddii supply fara badan aad keento waxa weeyaan dee ganacsiga agaalka aad ku khasaaraysa. marka waxaa la dhahdaa if the demand is high and supply is low, the trade goes up. sidoo kale waxaa la dhahdaa if the demand is low opposite and supply is high, the trade goes down. marka haddii baahidu ay sareyso wax yar la keeno, waxa weeyaan dee had iyo jeer ganacsiga kor buu u kacayo, lacag fara badan baa laga helaa. haddii waxa weeyaan shaygii aan loo baahnayn oo waxa weeyaan supplyga uu bato, dhimaankii inuu yaryahay, iyadna halkaa waa meel had iyo jeer lagu khasaaro. waxa weeyaan qofku dee lacag badan kiil waa laga yaabaa ganacsiga markaan hoos u dhaco. marka tradeki markaa sidaa buu saameyn ugu yeelanaya. sidoo kale informationka inuu nimaado, informationka halka communicationka inoo galay. marka haddii baahi ay jirto, for example iminka internetka kale waa communication, marka haddii baahi fara badan iminka loo qabo internetka ay jirto, oo dee supply baa imanaya meesha sooma, dee waxa weeyaan waa la keenaya, waxa weeyaan ummadii waa la gaarsiinaya. marka iyadna waxa weeyaan dee communication markaa uu ficnaanaya, waxa weeyaan dee much money baa laga yaabaa in laga helo. marka haddii sidoo kale internetkii baahi badan aan loo qabin, oo waxa weeyaan deedna la keeni maayo, marka iyadna waxaa dhacaysa in halkaa iyadna in markaa communicationkii waxba laga heli waayo ama lacag badan laga heli waayo, markaas in low uu noqdo. marka labadiiba haddaynu ku dabaqno sidaa markaa mid walba saameyn ugu yeelan. waayo ta labaad marketkii baa go'aaminaya. marketkii isna waa laga maarmaan, oo waxa weeyaan wax kasta oo la iibinayo dee marketkaa loo eegaa, baahi intee leeg baa suuqa looga qabaa. ya marka haddii baahiba ayna jirin oo commodity ama goodska ama wixii product la soo saaray, ama service ha noqdo ama goods ha noqdo, wixii la soo saaray haddii baahiba ayna jirin, the transportation ma imanayo, allahumma musta'an communication ma imanayo. marka labadiiba the negative saameyn negative ayuu ku yeelanaya marka, oo communication dhici maayo, transportation dhici maayo. marka haddii wixii markaa marketkii looga baahnaa shaygii aan looga baahnayn, market is required for commodity or source of information or means of communication. suuq waa loo baahan yahay, wax kastoo la iibinayo suuq baa loo eegaa sooma. marka suuqii hadduuna jirinba shaygii baahi badan ina jirinba, dee wixii markaa wax soconaya oo shaqaynaya maaha. marka iminka haddii for example communication haddaan iminka aynu ka hadlay, iminka internet kale aynu soo qaadano example fiican, haddii marketkii dee baahi badan loogu qabin, qodobkan labaad qodobka weyne isku xidhan yihiin, baahi badan loogu qabin oo market fiican ma jirin, dee waxa weeyaan communication ma dhacayo, waxa weeyaan dee halkaa lacagba laga heli maayo. sidoo kale haddii alaabtii commodity ama goodskii wixii la iibinayay oo iyadna waxa weeyaan baahi badan aan loogu qabin oo marketkii aan looga baahnayn, iyadna waxa weeyaan dee iyadna transportation dhici maayo. marka labadii iyadna market ku saameynaya. marka market fiican hadduu jirana si positive u saameynaya, market xun hadduu jirana si negative u saameynaya. waayo ta saddexaad infrastructure, waxa la kaabayaasha dhaqaalaha. infrastructure waxa weeyaan dad maqasho ardayo waa kaabayaasha dhaqaalaha. kaabayaasha dhaqaalaha marka way fara badan yihiin, bankska ka mid ah, jidadka ka mid ah, roadska ha noqdaan, kuwii baabuurta isticmaalaya ha noqdaan, railwayadii ha noqdaan, kuwii ha noqdaan maxaan ku dhaha tram isticmaalaya, airportskii airportadii ha noqdaan, portskii dekedii ha noqdaan, bridgeski ha noqdaan, electricity ha noqdo, water, all these things baa waxaa la isku wada infrastructure, waxyaalaha fudaydiya markaa tradeku inuu kor u kaco ama inuu ganacsigu kor u kaco, infrastructure-ka ka mid. oo inaga dhana waddanka infrastructure-ka
waa high waddanka infrastructure-kiisuna waa low. Way infrastructure is required for establishment of efficient and efficient transport and communication network. Marka inuu transportation-ki fiicnaado efficient noqdo ama inuu inefficient noqdo fiicnaan waayay ama communication inuu efficient noqdo fiicnaado ama inuu inefficient noqdo fiicnaan waayay infrastructure in la helo ayaa laga maarmaan. Marka infrastructure fiican hadduu jiro communication-kii wanaagsan iyo transportation haddii poor infrastructure jirana communication iyo transportation-kii baa u xumaanaya. Tusaale ahaan imika xagga transportation markaan ka hadalno haddii dee airports ayna jirin roads fiican ayna jirin railway fiican ayna jirin ports fiican ayna jirin dee waxyaalihii transportation-ka fududeynayay inuu dhaco. Marka haddii waddanku waxaasoo dhan buur ku yahay dee poor transportation baa imanaya marka si negative u saameynaya. waayahay communication-kan soo qaadano for example haddii electricity fiican waddanka una lahayn waxa weeyaan poor electricity uu jiro dee communication ba dhici mayla internetka waxaan oo dhan ku wada shaqeynaya electricity waay marka taana sidaas markaas saameyn ugu leeyahay. waaya ta ugu dambeysa politics siyaasadda meesha ka jirtayna saameyn bay ku leedahay communication iyo transportation haddii meesha good political system uu jiro labadana way fiicnaanayaan. Politics waa siyaasad. Politics whereby the government may ban use of certain means of communication where the government might decide to be the leading provider of transport and communication facilities. Politics-kina saameyn buu markaa ku leeyahay. Wasoo saameyn u leeyahay waxaa jira political systemyo kala duwan oo la isticmaalo xagga dhaqaalaha ayaa jira adduunyada. waxaa kamid ah capitalism baa kamid ah socialism baa kamid ah communism baa kamid ah. in for example waddanku hadduu haysto communism system oo waxaa la yidhahdo shuuciyadda la yidhahdo ama waxaa la yidhahdo hanti wadaag wax walba dowladda iskale. imika haddaan imika tusaale soo qaadano communication kale internetka iyo waxyaa for example dowladda maamusho lagu dhaado iyo marka wixii private uu yahay way yar kala duwanaanayaan. waxa weyn dadku had iyo jeer waxyaalo markuu wuxuu private uu yahay kamaniyo fara badan jiraan ee tartan uu jiro kawa dadka uga fiican markuu wax walba dowladda ay maamusho waxa weyn kan wax badan bay helayaan waxa laga yaabaa hadda maadaama tartan uu jiro qiimo jaban bay ku helayaan laakiin kan waxa laga yaabaa wax walba inay dowladdu wax weyn gacanta ku hayso marka ay qiimo hadda say doonto marka ay u dhigayso. marka siyaasadii meesha idin ka jirtay saameyn bay ku leedahay transportation-kii iyo communication-kii. marka haddii imika good political system uu jiro dee transportation waa la horumarin waxaa la sameyn jidad fiican baa la sameyn oo hadii jeer waxa la siyaasadda dhaqaaluhu isku xiran jidad fiican baa la sameyn kuwa tareenada diin kuwa baabuurta isticmaalay diin boords fiican baa la sameyn waxaa la sameyn airports fiican waxyaalaha ayo dhan waxaasoo dhanna waxa weeyaan dee dhaqaalihii kor bay u qaadayaan way horumarinayaan. communication-kii soo kale dad soo qaadato good political system meesha uu ka jiro dee waxa dadka access u helayaan inay helaan internet fiican access u helayaan telecommunication fiican helaan waxyaalo fara badan marka access u helayaan. marka labadiiba markaa u horumaraya marka labadiiba iyadna wanaagsanaaday waxa weeyaan dee saameyn fiican markaa trade-kii ay ku yeelanayaan. marka intaa baynu kusoo gabagabeyneynaa waynoo iyo cashirkeena dambe haddii la idhaahdo waxaan igaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.